shirkani jaraa'id ay maanta sida wada jirka ugu qabteen bahda warbaahinta magaalada Jowhar kusimaha madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ahna madaxweyne ku-xigeenka Cali Cabdillaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed ayaa waxa ay ku cambaarayeen qarax ismiidaamin ah oo maanta lagu qaaday xero militariga AMISOM ay ku leeyihiin magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoona ay tacsi u direen ehelada dadkii geeriyooday iyo waliba dowladda Jabuuti oo ciidamada la qarxiyay ay ka soo jeedaan Sheekh Cismaan Barre Maxamed gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ugu horeyn warbaahinta la hadlay marka hore shirkan jaraa'id ku saabsan waxaan cambaaraynaynaa qaraxii saaka ka dhacay magaalada Beledweyne galbeedkiisa ka dhacay gaar ahaan suuqa xoolaha iyo xirada walaalaha Hiil walaal Jabuuti ayaan cambaaraynaynaa waxa kale oo rabaa inaan ka tacsiyo dadkii ay wax ku soo gaareen walaalaha Hiil walaal ciidamada wixii soo gaaray iyo shacabka waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo anoo ku hadlayo magaca baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle waa ilaahay mahadiis dadkaas oo qasaaraha aad iyo aad ay u yar yahay sida hadda aan xogta ku helayna sidii ay rabeen ma noqonin kooxdii nabadiidka ayaa saaki meesha isku dayday in dadkaasi dhibaateeyaan iyo walaalaha Hiil walaal umana suuro gelin dhibkii hadda ay la damacsaneen dadkaasi marka mar labaad mar saddexaad waxaan cambaaraynayaa qaraxaasi meesha ka dhacay foosho xun kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Cali Cabdillaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa ugu dambeyn asna qaraxa cambaareeyay dowladda Jabuutina tacsi u diray maanta shirkan jaraa'id oo qabanay wuxuu ku saabsan yahay qaraxi ka dhacay magaalada Beledweyne ee nimankii nabadiidka ahay inay dhibaato ugu geystaan ay rabeen ciidamada Jabuuti ee ku sugan Soomaaliya gaar ahaan Beledweyne waxaan rabnaa marka guud ahaan inaan uga tacsiyeyno dowladda Jabuuti iyo shacabka Jabuuti iyo ciidamada Jabuuti ee ku sugan Soomaaliya dhibkiidan ku dhacay dadkii dhintay Allah u naxariistaan leenahay inta dhaawacantana Allah caafiyo dhibkana waa idin la qabnaa sida xanuunku u dareemaysiinaan u dareemeynayna aan u dareemohaynaa waxaan nahay dad walaala dad noo soo gurmaday ee naftooda iyo maaragtay amaalkooda noo huray in la wax la yeel dhibaato intaas ay la eg ee wax ka yeelo ku soo gaarto aad aan ugu xunnahay qaabka fulanimada hay nimankaas u soo abaabuleen weerarkaasna waxaan leenahay waan ka xunnahay waana cambaaraynaynaa inta dhimatan Allah u naxariistaan leenahay guud ahaanna waa uga tacsiyeynaynaa ummadda reer Jabuuti dhibkaas soo gaaray ciidamadayni waxaan leenahay xanuunka dareemaysiina idin la dareemaynaa inta naga dhimatan Allah u naxariistaan إسماعيل عبد الله سبرية Universal TV جوهر.